iminka haddaan ka hadalno wordka 2010 maadaama ay feature badan oo cusub ay ku jiraan, waxaan ka hadlaynaa qaybta wordka documentka toolska sidaan u isticmaali lahayn. wordka 2010 new tools ayuu wataa, toolsyo cusub buu wataa iyo qaar kale horey u jiri jirta sida rulerka 2003 feelshanadii ka horreeyay 2010 way lahaayeen ruler, balse rulerka iminka 2010 uu wato waa rulerkii aan naqaanay, laakiin feature cusub ayaa ku darsantay. iminka haddaan ka hadalno cashirka maanta wuxuu ku saabsan yahay scroll barka dhanka midig baad ka arkaysaa. haddaad doontid waxaad isticmaalaysaa intaad barnaka scrollka intaa qabatid adigoo mouse ku qabanaya left click kabacdin aad kusoo dejinaya oo saas aad ku eegtid documentka wuxuu ka kooban yahay inta page ku kooban yahay. haddii kale waxaad adeegsanaysaa batamada uu wato scroll barka oo hoos ku yaal kan ayaa ka mid ah barnakan ugu horeeya. haddii aan ku dhufto wuxuu usoo degayaa line by line buu usoo degayaa qaabkaas, ama haddii kale waxaan adeegsanayaa badhamada kasii hooseeya oo iyagana ay sidoo kale aan waxba dhaamin, laakiin ay tahay by crosser buu u soconayaa, line by line buu u soconayaa nafsirkiisa. haddaan crosserka barnaka haddaan ku dhufto crosserka waxaan arkaynaa in lineka labaad inuu ugu soo gudbay, saas lineka saddexaad saas u soconaya line by line. iyadana naftirkeedana waxa weeyaan waa qaabka scrollka uu shaqeeyo. haddii aan damacno in aan page by page aan usoo gudubno, sida ugu fudud loo isticmaali karo markaas waxa weeyaan keyboardka adigoo isticmaalaya oo labada badhan ay ku qoran tahay page up iyo page down ayaad isticmaalaysaa. maadaama safxadda ugu horey aan joogno meeshaan ay ku qoran tahay page 1 of 24 ay u dhiganto pageka koowaad inuu qofka hadda iminka ay noo muuqato inta documentka ay ka kooban tahay pagena ay tahay 24 page oo documentkeeni ka kooban yahay. waan u imaan doonaa dhanka statuska waan ka hadli doonaa, balse barnanka page up page down haddaan riixno barnanka page down haddaan riixno waxaan arkaynaa pageka labaad inuu u gudbay. haddaan markaan riixno waxaan arkaynaa page saddexaad u gudbay. iyada nafsirkeeda waxa weeyaan waa micnihii waxaad ka raacaysaa keyboardka adigoo barnankaas riixaya. ama haddii kale page up haddaan riixo page up waan saas ku tago safxadda koowaad. haddii aan control aan ku qabto barnankan control haddaan riixo barnanka naftirkiisa oo page down aan riixo waxaan arkaya line by line inuu u degayo, line by line ayuu u degayaa. haddii aan control ka qaado farta waxaan arkaya oo aan pageka aan riixo page downka inuu usoo gudbayo pageka labaad automatically isagoona linekaas uusan akrin ayuu usoo gudbaya page buu akrinaya markaas. laakiin haddaan control ka riixo wuxuu akhrinayaa line by line buu usoo degayaa. okay, taas waa badhamada barka maxaan ku dhahay scroll barka. waxaa jirta badhan kale oo gudaha ku yaal oo de selected browserka oo dee aad ka dhex dooranaysid qaabka adiga safxadda aad micnihii aad u sameynaysid browserka ama scrollka aad ku sameynaysid. haddaan riixno barnakan gudaha oo wareegsan haddaan riixno wuxuu ku siinayaa optiono. ma waxaad u doonaysaa gule browse by table haddii ay ka kooban tahay tablo safxadana table haddii ka kooban tahay qaabka tablada aad u raadinaysaa table buu ku gudbinayaa. haddii ay ka kooban tahay graphics ama sawiro saan sheegnay illustration, haddii ay sawiro ka kooban tahay ama shapes ama chart isagana qaabkaas oo kale ayuu u gudbayaa inuu talaabadaas ku qaado oo graphics ahaan. haddii ay ka kooban tahay headline oo si aad iminka safxaddan ay ka kooban tahay headlineyo fara badan bay ka kooban tahay, headlinekaas ayuu ku gudbinaya. haddii iminka headline haddaan doorano haddii iminka wuxuu saaran yahay 1.2 employment headlinekan ayuu saaran yahay. haddii aan u gudbo headlineka labaad oo barnankan aan riixo headlineka labaad buu u gudbayaa, headlineka labaad buu u gudbayaa. uma gudbin paragraphka wuxuu u gudbay headline sababto by headline baan aniga doortay. haddaan mar kale aan ku dhufto wuxuu u gudbayaa headlineka kale oo ah sectionka to meeshaan oo farta guudan ayuu u gudbayaa. haddaan mar labaad aan riixo wuxuu u gudbayaa headline buu u gudbayaa. saarno headline kale headline sababtoo waxaan dooranay waa headline. optionka micnihii xigta aan dooranayno waa kan browse by page, yani page baan rabaa inaan u raadiyo
okay page baa hadda iminka ii dooran haddii aad iminkaan ku dhufto aragsay noqonayso pageka ayuu gudbay hadda markaan ku dhufto pageka kale buu gudbay pageka 10aad baan ku jirnay haddaan ku dhufto pageka wuxuu u gudbayaa 11aad sababta waxaan dooranay waa by page baan dooranay marka halkaan naftarkeedana waxa weeyaan waa shaqadan waa laga qabsan karaa saa adiga qofku isaga suu damco ayuu uga qabsan karaa haddaan hoos soo degno dhanka bidix aan kasoo bilaabno waxa weeyaan print layout macnii qaabka haddaan ku dhufto qaabka macnii warqadda igu soo baxayso mashiinka printerka ayuu ku tusinaya wuxuu ku tusinaya qaabka printerka ay u soo baxayso waa print layout kan ku xigto waxa weeyaan full screen reading layout waana qaabka buugaga haddaan ku dhufto qaabka buugaga buu ka dhigayaa oo wuxuu ku soo saarayaa 2 safxadood is-ag yaala sida qaabka full screenka layoutka waa qaab lagu talagalay in attentionka qofka inuu siiyo qoraalka ku qoran uusan siinin safxadaha oo ay ka muuqato waxaan ka wadaa halkan waxaa ku qoran page 11 12 of 24 macnihii kan waa 11 buu ku leeyahay waa pagekii 11aad kan waa pagekii 12aad laakiin sida saxda ah warqadda ma ahan 11 iyo 12 ee wuxuu ku soo bandhigayaa qaab macnihii akhrinta ah laakiin safxadda runta ah ma ahan sidan aad iminka ku arkaysa kan waa view waa keliya by screening qaabku ku soo dhigay keliya kama badna numberkan laakiin maaha numberka warqadda uu soo baxayo as a print layout kan waa qaab akhrinta un keliya qofka wuxuu rabaa inuu eego qaabka waxay usoo baxayaan qoraalada okay markaad ka bixisad close baad ku dhufanaysaa waxaan u gudbayaa qaybta saddexaad oo dhanka web layoutka isagana markaan ku dhufto wuxuu ku soo saarayaa qaabka haddii ay noqoto inaan u gudbiyo ama aan saaro ama publisher aan ku sameeyo website-ka qaabka uu usoo bixi lahaa website-ka gudihiisa ayuu kusoo dhigay waad aragtay headline-ka inuu safka buuxiyey waa qaabka ay website-yada ay ku shaqeeyaan qofka website-ka dhigta unbaa fahmi karaa macnihii tag iyo glasseska hadda qaabka uu samaysan yahay waa qaabka website-yada u qormaan ama usoo baxaan ayuu samaysan yahay isagana waxa weeyaan waa qaabka wuxuu kusoo bandhigayaa website-ka uu samaysan yahay qofka raba inuu ogaado hadduu ku shubo ama uu publisher ku sameeyo website-ka qaabka usoo bixi lahayd ayay ka caawinaysaa inuu ogaado qaybta kale ku xigta outline weeyaan outline-kana isagana wuxuu kusoo dhigayaa macni dadka badana isticmaala outline-ka ama userka isticmaala outline-ka badana waxay ku isticmaalaan inta ay qorin paragraphka ama bodiga intaysan qorin ayay waxay qoraan marka hore headline-ka markay qoraan kadib ayay waxay saaraan paragraphka ama bodigii wixii ay ku dhex qori lahaayeen haddaba qofka isticmaalaya wordka shardi ma aha inuu intuu ka galo headline-ka kadibna uu sameeyo outline-ka ka wada kadibna uu sameeyo headline-ka si uu shaqadiisa uu ku dhamaystiro shardi ma laakiin waxa weeyaan as a review macni inuu arko wuxuu qoray qaabka ay isku bedeshay ama qaabka ay u noqotay as outline marka iyadana taasay kaa caawinaysaa inaad aragtid outline-kaaga siduu uu yahay qaybta draftiska iyo waxaa isku dhow outline-ka waxaad moodaa inay meelo badan ay iska egyihiin balse draftiska isaga waxaa lagu talagalay in uu qofka macnihii uu si plain ah qoraalka oo keliya inuu ka arko haddii ay ka kooban tahay sawiro badan ama tablesyo badan haddii ka kooban tahay waxaasna ay ka baxayaan oo keliya waxaa kasoo haraya qoraalkii oo keliya headline-ka iyo topiga uu qofka uu qoray iyadana waxay ka caawinaysaa in uu arko qaabka qoraalka ay usoo baxday isagoo nadiifsan qaab qoraal oo nadiifsan oo xataa waxaad arkaysaa meesha dhibcahan waxay u dhigantaa pageka macnihii pagekii inuu halkan ku dhamaaday pageka kale inuu halkan ku bilaabmay iyo naftirkeena waxay tusinaysaa muuqaal guud qaabka ay documentkiisa ay u samaysantahay iyana taasay ka caawinaysaa waxaan usoo laabaneynaa oo aan geenaynaa printing layout-ka kadibna halkan haddaan imaano meesha dhanka maxaan ku dhahay statiska barka
halka ugu horeysa wax weeyaan waxay sheegaysaa pageka numberka pageka iyo inta page ay ka koobantahay documentkeena. hadda iminka waxaan saaranahay pageka 11aad saa aragno halkan 11 baa ku qoran halkaana 11 baa ku qoran pageka 11aad of 24 yani 24 ay ka kooban tahay documentkeena 24 page ay ka kooban tahay. marka haddii aan rabo inaan u gudbo pageka shanaad just click baan siinaya waxaa ku soo baxaya go to macnii u gudub. halkaana waxyaabo badan baa ka arkaysa wuxuu inoo saaran yahay page section baa jira oo line baa jira line macnihii sadraka aad doonaysa inuu ku qoro. hadda by page buu ku saaran yahay by pageka shanaad baa raba inaan u gudbo 11aad buu ii saaran yahay pageka shanaad markaan raba inaan u gudbo 5 baan ku dhufanaya kadibna waxaan leeyahay okay go to add pageka shanaad buu aadayaa. halkan saa aragno pageka shanaad ayuu gudbay page shanaad waa kan marka waa iska xiraya. halka page shanaad baa jooga marka si easy ah waxaa laga yaabaa qofka inuu san ahayn waxaa laga yaabaa 1000 safxadood ama ka badan inuu u furan tahay marka intuu scroll barka intuu isticmaali lahaa ay waqti ku qadan lahayd halkan ayuu imaanaya kadibna pageka uu rabo ayuu ugu qoraya. iyadana taas bay ka caawinaysaa oo de waqtigana wuxuu saamaxaysa waqti yar inuu wixii ku helo. halkaana waxaa ku qoran wordka inta word ay macnihii la isticmaalay ay tahay 7387 word in la isticmaalay ayaa meeshaan ku qoran. haddaan click siiyo waxaa kusoo baxay table yar oo information yar ku qoran tahay oo qofka uu ka arkayo intuu shaqada uu qabtay inta la eg tahay. inta page ay ka kooban tahay waxaa ku qoran 24 page documentka ka kooban tahay wordka inta word ay la isticmaalay ama lagu qoray ay tahay 7387. kan waxay ka caawinaysaa wordka haddii iminka numberkan wordka waxay ka caawinaysaa shaqa lagu dirsan karaa lagu dhihi karaa waxaa rabnaa inaad noo translate kitaabkaasito by ereba macnihii ayaa lacagta lagu siinaya for example. marka waad ogaan karta inta eray ama inta word aad isticmaashay oo de translation ku samaysay halkan ayay kugu qormaysaa aad ku fahmaysaa inta shaqadii aad qabanti leegta. characterka sidoo kale no space oo spacekan lahayn intaas wey macnihii paragraphka sidoo kale 390 paragraph bay ka kooban tahay documentka. lineska waa 694 line. marka haddii aan doonayo in for example aan ku daro macnihii item safkan statuska waxaan aadayaa meel ka mid ah barka statuska right click baan siinaya waxaa kusoo baxaya customize-kana kusoo baxaya sida aan ugu dari jirnay ribbonka maxaa ku dhahay sida aan quick accesska aan ku dari jirnay command-yada inta sidoo kale waa isticmaali kartaa adigoo ku daray itemka doonist oo status barka adigoo isticmaalaya. sababta halkan waxaan aragnaa customize status bar baa ku qoran marka halkaani ay kasoo baxayaan wey. for example waxaa raba inaan isticmaalo line number waxa la yiraahdo line numberka versionii hore way jiri jirtay marka versionkan imika waxaa moodaa in ay laga reebay laakiin waad ku dari kartaa haddaad doonaysid adigoo saxda saaraya. kuwa saxda saaran waa kuwa muuqda kuwaan saarnayn waa kuwaan muuqan ama ay ka qarsoonta hiding lagu sameeyey. marka waxaa rabnaa line numberka inaan soo saarno waan ku dhufanaa saxdaan saaraya saxda markaan saaro automatic halkan ay soo koraysaa. muxuu ka caawinaya linekan for example wuxuu iga caawinayaa hadda iminka pageka shanaad ayaan ku jira pageka shanaad waxaa rabaa inaan ogaado pageka shanaad waa kan linekan safkan waxaa rabaa pageka shanaad line k number k ayaa lineka ku jira. haddaan saaro closerka wuxuu isku bedelay lineka 17 marka laga soo baro headingka ilaa aan soo socdo halkan waa 17 line 17 linekii buu ku jira. arrintaasuu ka caawinaya. okay markaan eegno meeshaan arrinta ku sii xigta markaan eegno waxa weeyaan waxaa aragnaa x guduudan. x-ka guduudan waxay sheegaysaa spellka meelaha qaar baa khalad ku jira ayuu ku sheegayaa macnihii wuxuu rabaa in aad iska saxdid x-kan isagana waxa weeyaan waa spellka. dhankan aan zoomka qaybta zoomka haddii aan meesha ugu dambeysa aan geeno waxa weeyaan boqolkiiba 500 waa meeshii ugu dambeysay. haddaan keeno meesha u horeysana waa boqolkiiba 10 ay tahay iyadana inaan pageka o dhan aan halkan ka arko saan doono aan u arko. haddii aan doono waa weyneyn karaa waxaan ka dhigi karaa 4 page inaan soo saaro
haddaan doonana waxaan ka dhigi karaa micnihii normalka 100. badanaa hadda imika labadan safxadood isku barbar yaala aniga screenkayga wuxuu sheegayaa in screenkayga aad buu u weyn yahay marka safxadaha qaar baa soo baxaya meesha laga raba hal safxad in halkan kasoo baxda markay 100 noqoto qof walba screenkiisa si qaab gaara bay usoo baxdaan screenkayga 2 page wuxuu usoo baxeen sababta screenka muraayadaan isticmaalaya ayaa xoogaa weyn marka intaan meesha 100ka intaan ku dhufto ayaa waxaa soo baxaya optionkan oo ah in aan ku buuxiyo pageka screenkayga whole pageka igu buuxi baan leeyahay markaan ku dhufto oo aan okay dhaho wuxuu i keenayaa halka safxad aan rabay wuxuu ku qiyaasayaa muraayadeeda marka optionada had imika toolbarka baasha la yiraahdo scroll barka qaybtan aan ka hadalnay ayuu ku kooban yahay marka casharka soo socdana waxaan dhigan doonaa mowduuc gaar ah oo inta aad u xiiso badan